Okay, bismillahir rahmanir rahiim. Waxaan sii wadaynaa casharradeennii aynu ku baranaynay Photoshop-ka ee la xiriiray tusaalayaasha ku saabsan sida loo isticmaalo Photoshop-ka. Marka kan waxa weeye waa business card. Marka file baan tagaynaa sida loo sameeyo macna business card-ka. File baan tagaynaa new aan dhahaynaa. Okay, halkaa waxaan ku qoraynaa business card baan ku qoraynaa. halkaana waxa weeye size-kii ayaan sameynaynaa. Width-ka waxaan ka dhignaa 3.5 oo inch. height-kana waxaan ka dhigaynaa 2.2 inch. halkan resolution waxaan ka dhigaynaa 300. color-kana waxaan ku dooranaa CMYK baan dooranaa. Okay baan dhahaynaa. Okay, marka si aan background-kan u bedelno cadaanka waxaan new layer baan sameysanaynaa. Okay, waxaan tagaynaa marka edit waxaan leenahay fill color. halkan marka color-ka meeshii aad midabada ka soo qaadan lahayd ayaa halkaas ku dhufanaysaa. waxa color-ka background-ka ma ka soo qaadanaysaa ama color ba ka soo qaadanaysaa, button ba ka soo qaadanaysaa. button waxa weeye waa nashqada diyaarsan oo ah background diyaarsan. marka kan ayaan qaadanaynaa oo inoo fudud waqtiga xaqiisa kana marka soo qaadanaya kadibna okay baan dhahay. sidaad aragtaan marka background-kii waan bedelay. okay, waxaan rabnaa marka qaybta sare inaan color qaybta sare business card-ka inaan color gaar ah u sameeyno. sidoo kale qaybta hoose yani inaan mid walba goorta si ay kugu fududaato inaad maamusho layer cusub ah haddana ku soo darsanaysaa. okay, waxaan markaan ku soo darsano selection tool-kaan tagaynaa. marquee waxa la yiraahdaa regular marquee tool ayaan soo qaadanaynaa. marka qaybta sare ayaan select garaynaynaa. markaan select garayno halkaan ayaan tagaynaa. color-ka ayaan bedelaynaa. foreground-ka ayaan bedelaynaa. color-kaas oo kale aan ka dhigaynaa. okay, markaan ka dhigno okay baan dhahaynaa. okay, waxaan tagaynaa G, xarafka G baan taabanaynaa oo ah gradient tool. halkaan ayaan tagaynaa. waxaan ka soo qaadanaynaa paint bucket tool kaasaan soo qaadanaynaa. marka dhag baan siinaynaa click. waka inaad saad aragtaan color-kii background-ka qaybtaasi waa isbedeshay. okay, control plus D baa dhahaysaa si aad select ugu samayso. okay, qaybta marka sidaas ayaan ugu sameyn. marka haddaan rabno inaan qalloocino ama aan resizing ku sameyno background color-kaas aan u sameyno qaybta sare waxaan taabanaa control plus T ayaan taabanayna oo free transform-ki. okay, halkaas ayaan ku dhigaynaa switch ayaan ku dhifanaynaa. meesha switch ay ku qoran between ayaan ku dhifanaynaa. halkaas aan ku dhifanaynaa. waxa sameysmay points-kaas ayaa ku sameysmay. marka geesaskaas ayaa qabanaysaa. wadana saas oo kale dad rabto xoogaa inaad hoos u dhigto ama inaad saa u qalloociso oo kale qaybta sare yani sidaas ayaad u maaragtay u maamulanaysaa. adigu sidaa u rabto ayaa ka dhigaysaa. anigu waxaan ku barayaa waa bilow macnaha oo farsamadii yani furihii ayaan ku furaya laakiin qofku isaga ayaa waqti anigu yar baan ku sharaxaya casharka. marka isaga ayaad si fiican oo xirfadaysan u sii isticmaali kara oo waqti ku bixin kara. okay, intaa markaan sameeyo haddana layer kale cusub baan sameysanayaa. okay, waxaan soo qaadanaya haddana qaybta selection tool-kii qaybta hoose baan isagana waxaan rabaa background kaleeto inaan u sameeyo. waxaan soo qaadanaya intii hore ay maray weeye. foreground-ki baa bedelaysaa. G baa taabanaysaa. waxaan marka halkaan marka aan bedelo foreground-ka color kale ka dhigno matalan cagaarkaas oo kaleeto oo biyaha waan ka dhigayaa. okay, color-kii marka waa soo qaadanaya. paint-ki tool-kii baan soo qaadanaya. dhag baan siinaya. sida aragtaan hadda color-kii isna qaybtaasi sidaas oo noqon. control plus D baan dhahayaa. okay, control plus T baan dhahayaa. okay, marka waa ka qaadi karaa haddaan doono. marka saas u durdarkeynaysaa. okay, switch-ki baan dhahaynaa sidoo kale. marka sidii markaan points-ki baan qabanaynaa. matalan kor xoogaa u qaadno waa kaas saas oo kaleeto. okay, enter dhe marka. okay, sidaas markaan nidhi hadda marka waxaa inoo haray sidii qoraalkii loogu qori lahaa. marka horta marka ugu horeeyo marka anigu nashqadii ayaan ku siinayaa laakiin qofka qoraalka hadhowdi iyo wixii faahfaahina waqti uu u baahan yahay. marka qofku isaga ayaa sameysan kara. ardayda inay iyagu isku maaragtay si raacdaan baa la rabaa. halkaan marka waxaan text tool-kii baan tagaynaa soo qaadanaynaa. okay, halkaa marka waxaad ku qoraysaa halkaan color-ka aan bedelo. font color-ka ayaan bedelayaa. okay, halkaan marka waxaan ku qoraysaa ugu horeysa
qaybta waxa iska leh hoos daan soo dejino size-ka xoogaan yareyno farta yareyno wali okay marka waxa halkaas wali size-ka fartaan yareyno okay logo ayaa halka qaybta ugu sareysa halka company logoda ayaa lagu qoraa la soo dhigaa halka macnaha company logoda ayaa halka la dhigaa geeskaas okay enter baan haynaa halka marka dhigto halka dhexe halkan matalan company name-ka ayaan ku qoray halkan company name baa lagu qoraa company name-ka ayaa lagu qoraa halkan okay halkaas macna intaas oo dhan company name-ka ayaa lagu qoraa okay halkan qaybtan ka hooseysa halka waxa la wixii macnaha waxa la yiraahdaa hal ku dhig oo ah maaragtay matalan company-ga the best choice oo kale yani company-ga waxa hal ku dhigeeda ayaa halka lagu qoraa okay marka inta qodho halkan dhexe wixii product-ga ah ayaad ku qoraysaa oo alaabta ah we provide you this products ma leenahay marka product-yadan ayaan ku siinaa ama products-ka ay shirkadu macnaha gado ayaa halkan marka ku taxaysaa okay halkan marka aad timaado marka halkan sawiradii baa soo dhigaysaa marka okay sawirada marka soo dhigaysaa marka file baa tagaysaa place baa dhahaysaa sawiradii baad soo qaadanaysaa meeshii ku yaaleen matalan tusaale ahaan sawirada aad gado buugaagta iyo matalan buugaag baan ka soo qaadanaa laptop soo kale okay soo yareynaysaa sawirka yareynaysaa kiisaska qabanaysaa meesha rabtay baad dhigaysaa sawirka okay enter baa dhahaysaa marka waa ka marka halkaas marka sawiradii iyagoo badan marka mid kale haddaan ku soo daro place baan tagaysaa sidoo kale waxaad soo dhigaysaa sawirkii kaleeto ayaad ku soo daraysaa enter baa dhahaysaa okay marka intaas samayso oo sawiradii soo dhigto waxaa kugu xigaya halkan hoose marka qaybtan hoose waxaa lagu qoraa wax la yiraahdo company addresses-ka ayaa lagu qoraa halkan hoose information-ka la xiriira ayaa lagu qoraa enter markaan naano su'aal ahaan halkan matalan halkaa waxaa ku qoraysaa telephone numberska ama wax la yiraahdo contactska ayaa ku qoraysaa contacts meesha macnaha lagala soo xiriiri karo ayaa shirkadda ayaad ku qoraysaa halkaas qaybta hoose sidaas ayaa marka u hagaajin kartaa oo farshaxanka adiga ayay kugu xiran tahay inaad waqti badan ku bixiso iyo qofku macnaha inuu macluumaadka halka matalan telefoonka hadee telkii oo kaleeto matalan telefoon halka marka laba dhibcood inaano okay markaas 090 waxaas matalan 666 numberkiisa oo kaleeto ayaa saas u qoraysaa numberadii ugu qoraysaa marka sidaas ayay ku xiran tahay inaad shirkadda anigu waxaan ku siiyay wax la yiraahdo template ama qaabkii formatkii baan ku siiyay aad raaci lahayd laakiin waxa la rabaa qofku inuu ardayga isaga la rabaa in hadhow waqti badan ku bixiyo qaabkaas ayaad u sameynaysaa waxa la yiraahdo business card-ka casharkaas halkaas ayuu maaragtay inuu ku dhamaa